waxay tiri odaygan waayeelka ee 60 jirka ah ee awowgay la eg markay walaashay diiday ana aabahay qolkii intuu ogolaan eriyay tiri aaba anaa ogol aasoo qaadan waay waxay tiri daris ha dhihin qaraabaha dhihin walaalahay ha dhihin afka ayadoo la wada haystaa odaygii la ii galbiyay tiri oo leeyahay gabar 18 jir ah iyo oday 60 jir ah aan nolol wadaagay kabacdi waxay tiri gurigiyaana la geeyay ani asagii waxay tiri dadkii markay naga kala tageen oo ehelkaygii soo tageen oo ilmihiisiyo markaas dad noogu dambeeyay ay tageen hal mar waxaa dhacay tiri arrin naxdin igu noqotay markaan kali isku noqonay ayaa naxdin arrin igu noqotay odaygii kala kulmay tiri maxay tahay arrinta naxdinta leh odayga 60 jirka gabadhan ay kala kulantay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دو جنال كيغ ايان قوب دون ومر كلا يسكسو نقدو ناكسن اي مقال كلا عصب فضلنا هدا ايقو عصب تهي سو دو سبسكرايب ايسار كمين نقا اصحابتي ده داور ايلا جوكتنا مقال كان لايك ايسار وانا مهدسنتين دمان ولا الله كحيران جنال كيغ ميل والبوات جوكتين وحن الهي دين كغير جينا يا نبض اي عافمات انا تكون ولاتان اصحابتي عصب اي كسو بيرت جنال كيغنا وحن لا يقعم فرون كسو دو هذا جنال كوا جنال كينا ومر كلا اي مقال كلا عصب أما قصة كلا عصب أنت أنا قصة وجود جلين افتتاحية سبحان الله هذا مركز سلامتي إذن فرعي إن دول عديناي ما لا يعني والله أم دول عدينين أصحاب تقاركود وحي سوقران الله أياني الله أباي ما أنت فحفحاته قاروي الدريمان مالك إجت شبنتو أن عاجز سنة هاي وأنا صح مالمها قارئات أن جق وهو هبي وهو wax iga dambeeyay kama fakaraayo muuqaalka waa ku taataagsadaa maalmaha qaarna allay badan maqli jirtay anigoo jiitamay aan duubaa wallahi waa itaqaaniin sababtoo ah waxa waaye halkan saa iiga daawanayseen waxa waaye si fiican ah ii barateen aadna waxa ugu faraxsanahay ina ila faraxsan tihiin maalinkaysa iga qasneenee waxaan ku dhahay aan idin dhoola cadeynaaye aan idin qoslaayay aan idin la kaftamaaye waxaan ku dhahay wajigayga farxad iyo dhoola cadeyn ay ka muuqato ilaahay farxadda nagama qaado ilaahay gadigeen saa u dhannahay ilaahay farxadda nagama qaado li'anno farxadda yacni hantida adduunka taalo ama adduunyada waxa yaala haddii gacanta lagugu shubo wallaahi farxadda looma dhigi karo li'anno waxaa arkay qof faqiir ah oo iska dhoola cadeynayo qof waxaa arkay nolosha adduunyo ay nusqaan badan haysato oo iska dhoola cadeynayo qof waxaa arkay nolosha u dhameystiranta ilaa xaddin ma adduunyadu ma dhameystirmatee laakiin ilaa xaddin ma hadana aanan dhoola cadeyn iyo farxad haysanin marka ilaahay farxadda nagama qaado anigu wax yar oo fakar ah ama problem marka arko wallahi waxaan u cararaa saliga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isla markiina maskaxdayda waxa ku jiro ama waxa igu soo dhaco yey waa iga siibmaan ilaahay marka dhoola cadeynta iyo farxadda waa wax aan la heli karin alla nagama qaado adduunyada sideedana imtixaan walba oo ku haysto noqo qof badana dhoola cadeysan li'anno murugtu da'daaday la dagaalamee quruxdaaday ka soo horjeesanee wax ay kuu soo kordhinaysan inaa murugootid ama يعني مشكلته أما بربلانه كهريالي إن أي كاحل سهسوجن وحلاقي يابا دنويين بدن عاد قبلهات أو عاد يعني نلش هذا أما كهر مريلهات إن هي بكهر استاكتو مركب مرول بإسكودي الدون كسيدة دبا قف لما يسترنتها مجرتو أنا كان مالين والبو والله جبرا وحي إتر أياني اسمع أنا اللهين أيانا قصة حنون بدن أدوغن تاي أم أي كدم بيسا وايو مر والبو نور دول عديساي هذا لأنه وهدا إلهي آمن سنتهاي قدرك إلهي آمن سنتهاي وحول بنا بالله وسيدة أوليين لمات إني إليين آمن سنتهاي والله إني سنعيد كل ذكر متكلنا وعيد كدرايا والدكين كدعيستا dhib walba oo idin hor yaal hadaa rabtiin xataa haduu ku hor yaal ilaahay inuu ku qafiifiyo hooyada iyo aabaha ka duceyso si oo niyadaada iyo farxadaada iyo wax walba ay ku kamilmato marka aada ugu faraxsanahay sida ay taqaaniin marka dhoola caday ay soo dhehaysiin waaw ayaan maanta faxfax waa way dhoola cadaynaysa
ilaahay gadigeen farxadda nagama qaado ilaahay qof walbana meesha uu nusqaan ka dareemayo ilaahay ha u buuxiyo asxaabtayda marka intaas waxay iga ahayd waano iyo bogaadin intaan sheekada u gudagelin gabar abaayaha waxay soo codsatay أولاد waxay dhahday dhowr sana la qabaama aanan dhalin asxaabta ayaanay waxa iiga dalbataa ama ay iiga codsataa inay ii soo duceeyaan maadaama bishii fadliga badneed ee barakeysneed lagu jiro labada channel ay waliba labadaba wallahi ku soo qortay marka asxaabtayda quruxda badan oo qiimaha badan abaaye si miniyad ah ugu duceeya hadii ay ku soo aado adigoo markaas afuraayo ودعي هدي محل ده سحور كوسو آدو يحل والبؤمقال كيجان وكسو جارسين يده ودعي إلهي وقبل أس ولا شيء يدعى الصوت البطي ربي الرحمن وفرج أفر وإله أبد كإرجيني سسيده إلهي وحان بايك عبرينا إلهي إنه أبد صالحين أو الضيبين أو نيد كل ستيد إلهي إنه ربتكو صارو ذلك إذا مدي لا إمات الله كوكسو مدي كلنا مركز أو أفرتد gabar abaayaha aad ugu mahad celinaayo oo fariido aan inta ka salaamayo wallahi daraad mirdhow iyo soo dirtay waxa ku celcelisaa markasto oo furtid ducadan waxa laga yaabaa inaad duca weyn يعني وين مركي لغو شيغايو إنا سوغيسيد لكن وادعو قف والبقو يقان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هدي الدونك إي آخرة انتبه يعني إلهي حسنة أما وناك يعني وكوغسيو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذابتنا ربي كان نار وحكو لمن ما بجرتبه مركا دعاء اسمر والبقو دعيستا إلهي نقف والبميش وكباهن هاي إلهي هكاها قبترو إلهي أساء أود بضاني ومهد سنتين أباي أسود دعية هدي أن أقول كلا مركز شيء كذا ما أنت أنا وضو أما هاد عنيق عواي يتهي مقالك مركان دوباي عوض أنا وضو إميس كانوا صارن شيء كذا وشيء عجيب أولا دعي عنيق سبحان الله وشيكو يعني دعاء والدك إيه مركو دبرك أنت كان رباح كويرة دونك هكو فرفرمو نبريسو المهم قبل قصة أي كل عضي وحلقوا مجعبا نها وحين كسو جيدا أما أي كسو جيدا ودن كعراق نها وحي ترى قصة يدو وحي بلابتي ورت وحن ككوبنين تري دور قبضات وحويلنا لما أوصل دلن أبهي وحي تري أيان نوشقني جري أنا وحي تري حالة دينو وحي إسك إهاد حالة فقير لما أنا إهيني تري dad ladana xagga iska dhig dad dhexdhexaadana maynan ahayn adigu faqiirka u soo dhaweynay dhahday waxay dhahday aabahay mar walba wuxuu ku tamani jiray in uu walad uu helo ama wiil ilaahay inuu siiyo laakiin waxay dhahday ma uusan ogeyn ilaahay subxaanahu wa tacaala ujeedka uu ka lahaa in uusan aabahay wiil uusan ku irsaaqin iyo hooyaday waxaa dhici jirtay dhahday aabahan inuu noo shaqay jiray awal oo wax walba oo guriga looga baahan yahay asaga inuu noo soo dhameystiri jiray laakiin adduunyadu way waaye badan tahay aaba waa uu duqoobay waxay dhahday wiil u shaqeynaya malahan anagana ka dhaqan ahaan gabar inay shaqeyso niman dhex gasho baxdo bulsho dhex gasho ma aynan lahayn ay dhahday aabahay adigu waxa dhacday dhahday sidoo u shaqeynayay in lagu yeeshay deeman fara badan maadaama ganacsigii iyo waxyaabihii yaryara uu isku celcelinayay ay isgureen oo annagii sidoo noogu biilayaba ay noloshii dukun daakun ku soo noqotay waxa marka qaar dhici jirtay dhahday aabe in uu yani inuu baxo oo kale oo banaanka aado in uu iska ilaali jiray laano meel walba faraqa looga dhaganaa qof walba deen uu ku leeyahay weydiina asagiina wax uu deen isaga dhiiba iska daayay qooto daruuriga maalinkaas aan cunayno inuu awoodi waayo gaare xilligan marka xaaladeeni waxay isku bedeshay dhahday faqri xaaladii macquulka ahayd inaan faqri noqono adigu ka bacdi waxa dhacday waxaan arki jiray dhahday aabaheeyo aad u murugsan aabaheeyo ka fakaraayo maxaa la dhahaa xalkee deentaan ka keentaa biri hadaa dhimatidyaha deentaan kaa dhiibi doono yacni murugtu maalinba maalinka kasii dambeyso inay uga sii daraysay hooyadayna hooyo guri joogta ay ahayd maba aysan shaqayn jirin annagana gabdho gelina wax barto inta kalena gurigooda joogaan ahayn waxay xaaladeeni neeha waxay tiri sidaa ahaataba waxaa dhacday dhahday maalin maalmaha ka mid ah
ayaa waxaana soo booqday tiri nin qaraabo nala ahaa oo taajir bimacna alkalima ahaa oo oday 60 jir ah oo aabahay kasii weyn adigu awowgay aan ku tilmaami karo oday ahaana soo booqday dhahde markuuna soo booqday waxay dhahday anigaa soo dhaweeyay oo dee markii aabbo uu u gudbay cabitaane iyo wixii markaas aan awood u lahayn iyo biyo iyo shaah iyo aan u geeyay dhahde kabacdi waxaa dhacday dhahde ninkii inuu aabbasu ula sheekaysanayay hadallo isoo gaagaareenay dhahde haddana waxaa isweydiinayay dhahde odaygan weligiis maba idin soo booqane oo taajirka gurigiina maba uusa imaane alla muxuu maanta idinka soo doone talow muxuu gurigiina u imaade kabacdi waxaa dhacday dhahda inaa isku dayay inaa aabbe iyo adeerkii dhageysto waxay isku sheegayaan kabacdi odaygii wuxuu bilaabay inuu aabbe xaaladihii sida isku wareysanayeen inuu aabbe yiraahdo niyahow deemo fara badanaa la igu yeeshay xaaladii oo dhanaa igu xirxiran meelaan ka shaqeeya ma lahan wiil ii shaqaynaa maanta ma lahan beri haddaan geeriyooda deentaan wax iga dhiibaaya ma lahan odaygii waa soo booday wuxuu yidhi niyahow idhageyso warhee anigaa kuu haaya wadna ilaahey idhageysuu dhahay niyahow gabdhaha kuu joogo oo gabar waxaa kuu joogto dhowr iyo 20 jir ah waxay tiri neeha aniga 18 jiraan ahay laakiin gabadha iga weyn waa dhowr iyo 20 jir adigu 20 jir meelahaas wuxuu yiri gabadhaadaas hiblaaye ah haddii aad isiisid ballan waxaan kuu qaadayaa inaan deenta dhankaa dhiibo inaan mashruuc ganacsi kuu furo oo aad ku shaqaysatid gabadhaadana meher qaali ah oo nolosheeda inta ay nooshahay ee wax ka qabsato in aan iskula meheriyo aabbi wuxuu yiri waa war fiican gabadhaydaan weydiinayaa haddii ay ogolaato aniga xaggayga wax haba yaraatee kasoo horjeeda oo aan samaynayo ma lahan waana aan ku qanacsanahay niyahow anaa warkuugu soo celi doono aniga waxay tiri warkiyaan dhuuxay wax walba waa maqlay dhahde kabacdi adeerkii waa iska tegay aabbi asagana waxay ku ballameen in abaayo uu aabba la fadhiisto bal aragtideeda iyo wixii inuu ka dhaadhiciyo adeerkii mar alaale iyo markii uu baxay uu aabba wuxuu bilaabay gabadhii da'dii iga weyneeday dhahda inuu u waco wuxuu dhahay gabadhaydiyey kaalay adeerkii maanta ii imaanayay ma ogeed asee tiri adeer hebelaana soo booqday markaasuu yiri aabbow adigu iga kaa soo doontay waxaan jeclaa lahaa inaa iga aqbashi dalabkayga gabadhaydiyey wuxuu ii ballan qaaday deynta inuu iga dhiibi doono wuxuu ii ballan qaaday mashruuc inuu ii furi doono marka waxaan kaa codsanaa aabbow inaa ninkaas ogolaatid waxay tiri aabba idhageyso aabbow ma shabaabnimadayda ama dhallinyarnimadayda macnaha aa rabtaa inaan beeciyo aabbow odaygan adi xataa kaasii weynoo adi ku dhali karo oo awowgay la eg maa rabtaa ani inaan guursado say wax kaa yihiin aabba ma waalate aabbi wuxuu yiri gabadhaydiyey dantaa igu qasbayso meel walba deenaa la iiga leeyahay aabbow dhib iyo dheef waxaan kugu soo koriyeyba maanta anaa halkaan kusoo gaarsiiye aabbow macaanow adigana mustaqbal qurux badanaa gare oon aa gelaysaa oo nin xun kuguma darooye cimri waa un da la tirinaaye aabbow iga ogolaaw ninka inaa guursatid si anigana korbada adduun aa iiga feedid midda kalena mashruucaan kusii shaqaysto oo noloshiina aan ku dabaro oo aabbow ii furaaya aabba beri haddii tii ilaahay ii timaado yaa deenta iga dhiibaayo idinkama waxaa rabtiin inaa shaqaysiino markaas kabacdi aad niman iyo bulsho iyo aad dhexgeshiin dee gabdhahaygiioo weligiinba maqbiyaadii ahaydeen waxbarashada iyo guriga maydan dhaafi jirin meel shaqa aa ka bilowdiina ma kasaysiin ee aabbow albaabkan risiqa noo soo garaacme ha iga dayacmin waxay tiri aabba iga raali noqo qaladna ha iga fahmin aabbow macaanow aniga odaygaas waayeelka naftayda u quurimaa intaas markay walaashay iyo aabba wadaagayeen aniga aan maqla ayay tiri kabacdi abaayo qolkii ka soo baxday saa aabbaan sheeda sidaa uga fiiriyay tiri asagoo murugsan oo qushuucsan aan arkay tiri waa aan u galay waxaan ku eriyay tiri aabba wax walba oo adiga iyo abaayo idin dhex maraayo waa aan maqlaayay waana aan ku dareemayaa aabbow macaanow aniga ayaa ninkaas galaayo aniga 18 jirka ah soo walaashay 21 jir ma diidin aabe anigoo 18 jir ah ayaa ninkaas odayga ah 60 jirka ah aa guursanayo aabahay waxay tiri waxaa moodaa waran ku taagnaa
in laga siibo farxad aabbo ma hubtaa aabbo ma iga hubtaa ama igu ceebay doontaa ama go-aanka ka noqon doontaa aabe waxay tiri ballan waxaan kuu qaadaa inaanan kaaga bixin ballanta in sida aan naftaada iigu hurtay aniguna naftayda kuugu huro ee aabe macaane ballan waaye ninka waxaa ku tiraa gabadha ka yar gabadhaas aan ku siinayaa aabahay asagoo faraxsan uu ii duceeye wuxuu igu yiri meher saasuu ku siinaa deentuu iga bixinaa mashruucuu ii furaa waa kuu duceeye hortaada kheyr allaha dhigo ilaahay adduunka wax kasta oo aa ku hamisaa ku siiyo duco igu shube anigu waxay tiri gudahayga ilaahay unbaa ogaa karo saasaan uga badbadahay tirka ololaa aabahay markaan fiiriyana waxay tiri sida uu u qushuucay waxaan iriya tiri farxadaada iyo mustaqbalkaaga intaba iska iloow aabaha deentan hadduu cawada la dhinto cid ka dhiibaysa ma lahan kurbadaana waa inaad ka feedid adigu ka bacda ninkiyaa loo tegay waxaa la yiri gabar hiblaayo way ku diiday gabar hiblaayo kalaa lagu siinaa waayuhuu yiri ani gabar kama jecliye waaba hadday tii ka siira ay siinaysa kaba sii fiican wow imaado odaygii waa la ibaray tiri hal mar ameen la fariiste waxay tiri waa oday sheeb ah oo 60 jir ah kabacdiyaa waxay tiri markaa meeshii la fariiste isla markiiba waxay yaraan meherkii ka hadalne waa uu iga tagay odaygu waa oday muxtaram oo iska macquulo laakiin nafta u quurimaysid 60 jir 18 jir meeqa u dhaxeeyo kabacdi waxay tiri aabahay haddana waxay tiri markasto uu igu soo dhaco intii horta waa la ii qaduubay tiri oo la ii faraanti galiye muddaa waxaa la sugayay tiri arooska iyo guriga intuu soo diyaarsanayo intaas aniga waxay tiri walwalka murugta farxad la'aanta ilaahay unbaa qiyaasi karo adigu wuxuu waqtiga isguraba odaygan waqti dheerba ma uusan qabsanin waqtigu uu soo gaabsadee waxaa la gaaray xilligii uu gurigeysa lahaa aniga waxay tiri asaga markii dhankiisa loo fiiriyo marle gabadha yartaahe xuural cayntaahe nimcada uu ku taama anigana maalin madow oo musiibo ah ii tahay aabahay horta wuu uga dhaweeyay tiri intuusa gurigeysan mashruucuu u furay deenti oo dhanna waa uu ka baxshay kabacdi waxay tiri anigii guri qurux badan oo kaala araga ilmaha de aniga ay dhali kar kuwa isii dhali karaa odaga u jooga waxay tiri guri kaala aragay adduunyo uu dhigay meher fooqal aqliyaal igula meheriyay adigu kabacdi waxay dhahday guriga la igeeyay aroos iyo adduun markii la ii dhigay guriga la igeeyay habeenkii waxay tiri markii guriga la igeeyay warba halkaan uu ka bilaabanaahe waxaa dhacday dhahde ilaa labada qof waa xoogaa waa la kala xishoon ama xataa hadda is soo jecleedeen oday sheeb oo cajuus oo waayeel warkiisa xagga igaba dhigay waxay tiri markii aan aqal galnay ilmihiisii waxay tiri horta na galbiyeen oo gurigii ii geeyeen kabacdi ilmihii way naga tageen cash iyo waxbay isugu keentoo toosiyeen garabkiina allaha galo dee alfa mabruuk aana la dhahe cidaydina waa ayaga iska soo tageenba oo dad waxaa noogu dambeeyaba ilmihiisa kabacdiyaa waxaa dhacday tiri in aan ka dareemay horta wuxuu yiri waa soo qubaysanaa waxaan dareemayaa daal fara badan arooskii iyo gurigii iyo adduunkii intaan diyaarinahay aadaa u daalanahay kabacdi aan ku eriyay tiri waayahay anigana waa qubayste kabacdiyaa wuxuu idhahay tiri waa aan iska seexanaaho xaaladaydu caadi ma ahan waayahaan dhahay tiri ani waaba isaga faraxsanaho inuu agteyda soo istaago ma rabo waaba ku qanacsanahe adigu kabacdiyaa waxaa dhacday tiri 8 saac oo habeenimo markay tahay xaaladiisii hal mar ay isbedeshay tiri xanuunaa ku soo booday anigii waxay tiri naxdin odaygii waxay tiri tacbaan ah aan arkay tiri xaa kugu dhacay qof aad dayb u ahna wuu iska ahaay dhahde markaasuu yiri xaalad caafimaad daraan dareema isla markiiba ilmihiisii u taleefan gareeyay tiri soo carar aabiin waa ka shakiye ma aqaan wax ku dhacay way soo carareenay tiri anagii oo dhan naxdin yaab odayga xaa ku dhacay isla markiiba isbitaala ula cararne adigu xanuun ku soo booday uu ahaay isbitaalka isbuuciyo adigu weeg 2 weeg camal uu ku jiray tiri oo sidii lagula tacaalayay isbitaalkii muddo markuu ku jiray anigina waxay tiri isbitaalkii ugula jiray ilmihiisii anaga isbitaalkii ku heynay waa uu soo fiicnaaday tiri gurigii imaaday mar alaale markii uu soo fiicnaado gurigii ku soo noqdo la isleeyahay qalaas oo iska fiicnaana odayga xaaladiisa caafimaad waa dhagdhag waxay tiri xaaladiisii maba fiicnaba qof yacni tacbaan ahoo awood aan lahayno
dee isbitaal ka soo baxayo iska tabar daran waa mustaqbal iyo nolol iyo farxad iyo aroos iyo iskaba ilowba odaygii iska jiran yahay adigu 2 bari 3 bari uu fiicnaaday kabacdi waxay tiri sidiisii haddana ku soo noqday haddana isbitaal ula cararnay tiri ani ilmihiisii marka isbitaal ula cararne waxa dhacday tiri isbitaalkii muddo markuu ku jiray odaygii kaw waaba uu geeriyooday anigi waxay tiri naxdeen marna farxad لأنه waxay tiri odaygan marnaba inaan nolol wadaaga ma rabin laakiin aabahay farxadiisa li ajligeed ula wadaagay tiri marna waa ka naxay tiri qof dhan oo ku guursaday oo ku guri geystay oo waxay tiri nololba eedan wadaagin oo habeenka koowaad xanuun ku soo boodo isla xanuunkii la u dhintay de waa isleedahay xataa waxa isleedahay adduunku maska sidaana waa barjad dhigeeba Soomaha adigu kaw oo yiri tiri hada aniga waxay tiri xaasuga kullu shay yarjicu ila aslihi waa Soomaha dharkeygii aan ku gurbistay tiri horta tacsiya loo dhigay tiri meedkii waa la soo aasay ilaahay ha u naxariisto adigu ka bacdi waxay tiri gurigii hooyada iyo aabaheeya imaade markaasaan waxaan dhahay tiri aabahay aabo qadarka ilaahay inuu cajiib yahay adigana kurbo walba waa laga feeday anigana anigoo gabarhan ku soo laabtay aabahay wuxuu iigu magac daray tiri kaalay wajiga khayrkaay magac saas camal oo ii baxsaday tiri adigu ka bacdi waxa dhacay tiri anigi farxad gabardheydiyaan ahay mustaqbal igama halaabin odaygii waxay tiri waasagii iska jiradayba ka bacdi waxa dhacay tiri ina meeshii iyo gurigeygii aan ku sii noolaaday muddo anigoo yar sii joogay tiri maalmaha kamid waxa noo imaaday tiri odaygii ilmihiisii ilmo kamid ah saaba waxay tiri waxayba noo wadaanba waxayba ii wadaanba hantidii uu lahaa intii aniga iiga soo aado dhaxal oo fooqal aqliya waxay dhaheen tiri wiilashiisii eedo soo dhawow qadarka ilaahay kama weynin aabaheen nolol kulama wadaagin sax waaye laakiin haddana xaasaad u noqotay oo de yani meherka kugu dhacayo marka aabaheen intii kaaga soo aaday dhaxalka aan jeclaysan inaan ku siino dhaxalkiya la kala qaybaye dhaqaale fooqal aqliya ay ii keeneen tiri anigi waxay tiri subhanallah ajib ee la noqotay tiri anigoo gabar ah oo waxay tiri wali guursanaan bataajirad isku bedele adigu ka bacdi waxa dhahday aabahay mashruuciisi inuu ku sii kordhistay noloshii noo sii hagaagtay faqrigi oo dhan inaan baabaa dhahnay oo dad ladan aan noqone ka bacdi waxa dhahday wiil dhalinyaro ah ayaan waxay tiri isbaranay wiilkii dhalinyarada iska helnay ka bacdi waxa dhacay tiri ina aabahay u keensaday waa isguursanay ubadan isku dhalnay aqeeran waxay tiri aabahay ilaahay u naxariistay waa uu geeriyooday ka bacdi waxa dhacay tiri anigiyo xaaso ilmo dhalay inaan hantidii odaygii uu igu yani iga soo aaday dhaxalkiisa inaan ganacsi ku furtay inaan gabar tujaarad ah aan noqday tiri aabahay mar walba sadaqo ayaan hadda u bixiyaa hooyadeena waxay dhahday waa isla noolnaho waa ka warqabaayo noloshu waxay ii tahay tiri nicmo iyo naruuro ana la soo koobi karin ubad fara badan ii joogo sawj aan aad u jeclahay asaguna aad ii jecel isla noolnahay dhahday noloshu waa in nimca iyo barwaaqo subhanallah bal aragay tiri kurbadii aabahay aan ka feedaayay nicmo adduun oo dhan albaabadeeda ay ii furfurtay ninkii aan la aqal galay tiri isla habeenkiiba inkastoo habeen qaracana ay aheedo de markii odagii soo dhacay oo isbitaal loo cararayo xaaladiisii ay beenalmood wal xayaad noqotayo haddana subhanallah ilaahay aniga odaygan ma aan rabinay tiri inaan la aqal galo wuu iiga dhabeeyay qadarkiisana xilligaas isagana ku ekaa risaqna ilaahay waa iga siiyay anigoo gabar ahna gurigeygii waa ku soo laabtay ujeedka iyo macnaha marka sheekadan aan ka leeyahay ama aan u soo gudbinayo waxay tahay tiri in aniga gabdhaha iga dambeeyo hadii waalidka uu duco shay walba uu duco horta alla ku yiraahdo qaado si nolosha adduunyo waxay tiri ay kuugu qurux badnaato oo nimco iyo naruuro kuugu ahaato aniga family qurux badan oo ladan oo gabarta jirad ah aan ahay tiri hadda intaasna waxaan ku helay ducadii aabahay kurbadii aabahay aan ka feeday qisadan aniga waxay ila noqotay qiso aad u qurux badan adigana hadii aad inta soo gaartay bal qaybta commentiga waxa iigu soo qortaa ra'yigaaga aragtidaada sidee kula tahay
waxaa la yiri dahab la miisaamay duca waalida ka fiican marka ducada waalidku dahab iyo diinaar iyo deeq intaba way noqotaa halkaasaan jeclahay qisadiina inaan kusoo gabagabeeyo tan iyo intaan qisadan qisa xigta ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu